cod sir ah oo laga duubay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dadweynaha Itoobiya ku noqday fajac iyo jahwareer. Codkan sirta ah oo laga sii daayay TV-ga Kelo Media ayuu Abiy Ahmed kaga hadlayaa xaalado fara badan. Intaanan toos idin maqashinin codka laga duubay Abiy Ahmed oo ah codkiisii ayaa waxaan isku daynaa inaan soo koobno waxyaabihii ku soo aroray ama uu ku hadlayay Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa sheegay in 10 sano soo socota uusan xilka ka dagaynin inuu xilka wareejiyana uu ka xiga dhimasho. Abiy Ahmed ayaa sheegay in cudurku koronuhu uu ahaa fursad wanaagsan oo uu ku marmarsiyon karo. Abiy Ahmed ayaa intaasi raaciyay inaysan jirin awood hor istaagi karta oo ay la dagaalamayaan cid walba oo isku dayda inay xukunka ka qaado 10 sano ka hor. የሚያስፈራኝ ጉዳይ በዚህ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ የሚፎካከሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዲያዎች ከምትገምቱት በላይ ብዙ ኃይሎች ከክልሉ ተምቶናል። እስከሚቀጥለው 11 ድረስ ማንም ሰው መንግስት ሆነ አይችልም። እሞታለሁ እንጂ ስልጣን አልሰጥም። ለዚህ የተዘጋጀው ግብረ ኃይል ስራውን ጀምሯል። ለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጅት፣ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ነገር ግን ከወዲሁ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ምንም ጥርጣሬ ሚስጥር የለውም፣ ምርጫውን አሸንፈናል። በቀላሉ በተቻለ መጠን ምርጫውን አጨናቅፈን የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለን። ካለንባቸው ፈተናዎች አንጻር የማሳካት ብዙ ከባድ ነው። ይህ ብቸኛውን መንገድ እንዳይበላሽ ድርብ ኃላፊነት ወስደን ልናሳካው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።